السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتي بداوديا شقيمة هي قدرت ميل بعض شوكتين ربع أنت سود وهذا كنا سود برامج كي ودي غيب سفن كي سوغان تاني جاهد من عيد قال لا يعني نسوي سنين مرتب برامج كوا حسن قتال اللي رايه فنانة والصومالي بدنا أيوة جرانيز سنة ولا حسيان حسن بن سود وينيا حسن سود وو عادي أضم هستوى على كله هاي هذه أصحاب هذه حقول دتك هذا بن سلامية تاجر شيء بن سلامية صومالي بن سلامية أنا waxaan ku aqaanaa xasan gantaal inta barnaamijka ugu gudagal waxaan rabaa bal magacaaga oo saddexan iyo taariikhda aad soo koobtay walaal xasan cabdi muuse cumar faarax hadii aan sii wadanay la meel fog xasan gantaal baa ku magac dheeray waxaan ku dhashay meel yada gurdumi oo ku taala Soomaali galbeed gurdumi aadiya marka dalkan hadda aan ku suganahay Kenya leeyahdana waan ku waxbartay waan ku weynaaday ma oran karaa oo ku soo barbaartay aadiya ناس جنتال وأنا ناس أو ماركتي يونيكو أو تذكر اسمه ذلهين. سفيان. صديق نادر هذا أفصل كشوا محله هو بحي. الناس تاني سحبنا هاي بحي كل يسوت ويقول دوري وحال من الناس إن لقوا رئيس قرح بدنا لها لكن ومقعون يقولها عمارة تلمان. تلمان. هذه وحن سوق بني هست وقول رئيس هست هذا. سفيان. وحال هذا مقع هذا قشي. قشي ويا كذا. تلماما. هست بالتاريخ وحير من وقتها بتبهنا. هست وحسمي أبوان أنا قدريه أو نيروبي ولا سجن أولي هذا من نقتشل عاقلك الله حن كان واحد صاري على شاعر عود كان أنا جا حنقولي كفاج عري واتحد موسيقى وحاسة كل سميوني لا يكرين بالشاوي شاواتني هسه ترقب بدنا السقطة أنا يعني نقود أفريا برامج كي ويدي قاضو وانا كي قيميسا انا عمد كاد كويدو قلبي قابوس يوكويلا نفتي ذا يروح كقاضو وانا كي قيميسا انا عمد كاد كويدو قلبي قابوس يوكويلا جراد مودو إنو يهي قال الروحة حدنا أنكو قلميني أفبا جراد مودو إنو يهي قال الروحة حدنا أنكو قلميني هو قروح ذيت المأمن مربيك وقيانياني القال ذا عاشقي يسو حدي تحقي ربينا وشي واي الكدادي عنده قروح ذيت المأمن مربيك وقيانياني القال ذا عاشقيدو هدي تحقي ربنا قشي واي الكدادي ودايداي كاجلاتي انتو كالقعيل كقومو هدو قبحي سهاقا اوغو على فكان قديني ودايداي كاجلاتي انتو كالقعيل كقومو هدو قبحي سهاقا اوغو على فكان قديني
jira ruux qabkiisu qariyo uu buurka tuuro haddana talo qaadanay waxaa jira ruux qabkiisu qariyo uu buurka tuuro haddana talo qaadanay qisooyinka sheekadaadu way marbay ku qayaanayaan qalqaalada caashaqiisu hadday tahay qiiro beena qushiye waayeelkadaadhe qisooyinka sheekadaadu marbay ku qayaanayaan qalqaalada caashaqiisu hadday tahay qiiro beena qushiye waayeelkadaadhe indhuhu quruxday tilmaaman marbay ku qayaanayaan qalqaalada caashaqiisu hadday tahay qiiro beena qushiye waayeelkadaadhe waa tahay qisooyinka sheekadaada hadday tahay qiiro beena qushiye waayeelkadaadhe aad iyo aad xasan heesta waaban jeclaaday ama kaas daba qaada heesu way dhicisay waayahan bakeliga maaha haleelo timiya aad iyo waa aad tahay intaan ku salaamayna heestii qushiye waayeelkada xasanow fanka Soomaalida maxaad ka aaminsantahay fanka Soomaalida waxaan ka aaminsanahay walaal dee waxaan ku fan jiro oo aad wanaagsan oo dunida qaybtiisa ka qaato soo bandhiga bulshada jiritaankeeda qofba fanka qisa ayuu ugu soo biiraa ujeedo gooniya baadigu fanka maxaad ugu soo biirtay walaal hadda dhex taagan tahay taageero badan aad leedahay aan la baron kahay aad baad maasan tahay kun jeer baan kaga mahadcelinaya adiga inta kale midkaaba waxaan ugu soo biiray fanka waan jeclaa walaal waxaan jeclaa waxa oo yaraanteedii ugu beernaa waana ka mid dhaliyay markaa inaan wixii bal intaan dunida joogeen waqti yar baa la joogay inaan soo taabtay go'aansaday kadibna waan ku guulaystay wax caqabada ma jiraan oo fanka markaa soo gelisay ka hor imaadeen dabcan shaqo kastood bilaabaysa way jirtaa adag iyo waxaan ku yidhi obstacle waxa la dhaho ama caqabadaba marka waa iska jiri karaa laakiin waan ka gudbayay uuna waxaan ku yidhi dee adkaysi iyo himilada fog oo maaragtay lagu hirto unbaan maxaa heday ku dhaafay qofku marka uu heer gaaro hal qof ama laba qof saddex qof buu xasuustaa ama ka badan oo asxaabtiisa oo marnaba aan garabkiisa ka dhaqaaqin adiga yaa garabkaaga taagnaa runtii dhinaca fanka markay timaado iyo nolosha guud way kala duwan tahay marka dhinaca fanka waxaa mar walba garabkayga taagnaa musiciankaygii oo mikrofoonka koowaad la soo hor istaago bulsho maxay ahayday ii dhiibay muusigii koowaad cod u duubo meelna ii garaacay waa maxamed diiri cabdullaahi bulshaawi aad iyo aad waa tahay ma xasuustaa heestii ugu horreysay aad qaaday si fiican ma xasuustaa haa hees dhaantaabay ahayd oo wadani ah oo aan markaa iyada ku taageerayay ururka ONLF oo u dagaalamaya xornimada gobolka Soomaali galbeed aad iyo aad erayadeed maxaa ka xasuustaa dhayalagu ma helo dheefta goobaanimo dhibta iyo rafaadkay ku soo dheelmataa waxaan soo qabanayaa dhaanto adigu aad leedahay dib baan soo laaban doonaa oo waxaan erayada ka xasuustaa dhexyaray si fiican heestaas gabadh adigoo kala loo qaaday waxaa malinayaa tilmaanteedana dee qayb baad ka tahay aad baad mahadsantahay waxaa runtii sameeyay dhaantadaas nuur caraale oo laxanka yeeraydaba iskale boqorkii dhaantada saaxiib aad igu qaalay aad baa u salaamaya aad iyo aad ninkaas isaga oo dee dhaantada waxaan ku yidhi ragga hoggaanka u hayaa aad iyo aad ayaa heesta ku faryareystay halka maan aad uga salaamaya una mahad celinaya yaa kuu tumay muusiga muusiga nin axmaar ahoo qolyaan dariska nahay xaggaas oo la yidhaahdo fatane ayaa tumay markii ugu dambeysay aan xaraas isku fiicnayn heestaasaan idin ciyaaraya dib isku soo laaban doonaa daris baan nahay marna saleenaa marna waan dabkan kala qaadanaa baxay dhulkeeni adaha dhexyarey dhaldheelano dhayihi ku arkan ku dhaafayne
sidii dhurka baxay dhulkeeni adaha dhexyarey dhaldheelano dayihi ku arkan ku dhaafay daqaaqiyo laafyahaaga dhugto markaan ku dhowaaday dhayhigaagayo dadyahay nebi yuusuf baad dhaxasho midku dhiga hooyo may dhaliney midkula dhaga dunida kama dhalane daqaaqiyo laafyahaaga dhugto markaan ku dhowaaday dhayhigaagayo dadyahay nebi yuusuf baad dhaxasho midku dhiga hooyo may dhaliney midkula dhaga dunida kama dhalane daraartan ku hela dhabtaylaadayo dhibkiyo qaarowgii idhaafeeno adaadhoodey xumahanba dhaqo dhismaha nolosho dhanba tahay daraartan ku hela dhabtaylaadayo dhibkiyo qaarowgii idhaafeeno adaadhoodey xumahanba dhaqo dhismaha nolosho dhanba tahay kala dhimino dhankii ladayaba xalaal dhalado xubihii laga dhowray baa tahay nadhamaystiranaha la kala dhimino dhankii ladayaba xalaal dhalado xubihii laga dhowray baa tahay jacayl dhaba maantaygu dhacayo adaan keliga ku dhowrtaaye miyaadday boogta dhaawacaho dholey dhakhtar kaygi mahad noqone honoy dhakhtar kaygi mahad noqone jacayl dhaba maantaygu dhacayo adaa keliga ku dhowrtaaye miyaadday boogta dhaawacaho dholey dhakhtar kaygi mahad noqone honoy dhakhtar kaygi mahad noqone daraartan ku hela dhabtaylaadayo dhibkiyo qaarowgii idhaafeeno adaadhoodey xumahanba dhaqo dhismaha nolosho dhanba tahay daraartan ku hela dhabtaylaadayo dhibkiyo qaarowgii idhaafeeno adaadhoodey xumahanba dhaqo dhismaha nolosho dhanba tahay daraartan ku hela dhabtaylaadayo dhibkiyo qaarowgii idhaafeeno adaadhoodey xumahanba dhaqo dhismaha nolosho dhanba tahay daraartan ku hela dhabtaylaadayo dhibkiyo qaarowgii idhaafeeno
adaa dhoobiyey xumahanba dhaqo dhismaha noloshoho dhanba tahay markaan ku helaan dhabtiiladayo dhibkii qarowgii dhaafteen heesta aad baan uga helay laftigeeda waxaan rajaynayaa dad badan oo xasan galtaal taageeri jiray oo taageer rasmi oo inay heestaan maaragtay marka dib u eegaan sama aad iyo aad waa tahay xasan haddaan dhaantada inta uga soo laabano dadka waxaa yidhi fulaxanti ma mooga si fiican maxaa lagu xantaa horta aan kula kaftame maxaa lagu xantaa talo bulshada maxaad ka soo maqashaa su-aasha dib ugu soo celiyay adiga ku dhex jiray adaan ku weydiinayaa bulshada anigu waxay ugu xamataa talo maxay ugu xamataa taa waan moogay aad iyo aad sida runtaa waxay tahay fulaxanti ma mooga qofna macnaa wixii u xigay ma mooga anigu haatan waxaan soo gaadhay oo maqan way qariyaan baan malinayaano yaa okay weli waxaan banaanka u soo baxay aan ku yiraahdo waxaas lagu hadal hayaa iyo maan arag laakiin adiga kulli sheegi doona oo socotaa aan ka gudbinaa xasanow qofka fanka heer ayuu jecel yahay inuu ka gaaro oo hankiisu gaarsiisan yahay adiga hankaaga fan ahaan xagee gaarsiisan yahay fankaygu aad iyo aad buu u sarreeyaa meesha u sarreysay fan laga gaadho ama magac ha noqoto ama mansab ha noqotee waa himiladayda inaan fanka Soomaaliyeed waliba si gaar ah isaga u bedelo oo meel sare u ka muuqdo gaarsiiyana waa qaybo kamid ah go'aamadan u bilaabayba aad iyo aad waxaan ogahay inaadan ku haysan luqad afka Soomaaliga kaliya si fiican maxaa kugu heliya aan ka qabtiro taageerayaashaada inteeda badan waxaan ku heestaa luqadda hooyo laakiin luqad labaad oo Sawaaxili iyo Ingiriis midkood labadaba marar qaar soo raacaan ayaan israahdaa fanku waa isdhexgalka bulshadu ku ka yahay oo waxyaabo badan oo nabadda ku ka tahay horseedaayo markaas sidaa darteed baan ugu heestaa luqadda Ingiriiska iyo Sawaaxiliga oo dalkan hadda aan joogno maartay luqadda koowaad oo ah ayaa ii soo weheliyay luqadda Soomaaliga aad iyo aad fankaaga markii la daawado feedback-kaaga imaada muxuu u badan yahay runtii dadka Soomaaliyeed waan mahad celinayaa way jecel yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa si positive un baa inta badan aan ka helaa talooyinkuna way ku dhex jiraan iyo maarta oo aan ku tiirsanahay oo ku toosanahayba marka waa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad adduunka maxaad u jeceshaa adduunka walaal nabadda u jecelahay cid walba deeqdaa marka nabadda aad iyo aad yaan u jecelahay adduunka nabadda u jeceshaa dadka geed ugu jeceshaa qofka runta sheega وصاحبتي نادية أنت كلامك كان حناقنا وقت كان حناقنا واته هدي اللي قلها وطن كنورة وطن كيف تكونوا على هيد قول كي هو وهم وطن بدنا هاي وطن كي الصومالي وناش كستوي دكتور أي وطن قوة لكن قربكم ما دور صدقني يميل كل يد ضانو ملين أنا أوران لها واته هدي اللي قلها شقة أنفن كأهين بالوجود ريا أما أتقبلني ساعة محتش على هيد عدس ولا أقوي ماد oo imka albaabkaas soo garaacday lacag guurayso waxa kala qabanaysa liiga waxaan walaal qaban lahaa businessman ayaan kale maskaxdayda aan ku programsan hoon ahayba marka businesska noocyadiisa kala duwan ee maartay music waa business laakiin haday noqoto dhar oo anigu aan soo maray taariikhdayda maxay ahayd Nairobi inaan gadi jiray dhar anigu way soo martay oo aan maxay ahayd soo shaqeyn la maxaan ku baran waa taa dhaftay marka waliba gadi jiray sidaan u hayaa ka daran way ku dhaafsay haw bixin marka dharka iyo dhinaca maartay ganacsiga kalena waan ku fiicanahay waaw ma sha Allah waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka intaanan heesta ugu dambaysa soo qabanin waxaan rabaa barnaamijka inaan soo xirno bal adigana aan ku siiyo si fiican kalmadaada Soomaalida maxaad dhihi lahayd Soomaalida waliba generationka hadda jiilka hadda ay daawanayaan ilaahdee ay ugu xidhan aad iyo aad horta markooda salaamaya si guud baan uga salaamaya inta kadibna waxaan oran lahaa isku duubnida iyo walaaltinimada Soomaalinimada ah yaan hoos looga daadagin oo qabyaalada maartay raadkeedu aad inoogu daahay ee Soomaali dunida dib uga riday bal in meel la iskaga tuuro oo waxaan oran lahaa la isku dayo dhinaca kale bal leeyahay qabyaaladii soo baranay qabyaalad la'aantuna sida way agtay bal aan baraweyn aad iyo aad haday siyaasadda iyo haday fanta iyo haday ganacsi tahayba in baasha laga dheeraadaan oran lahaa aad iyo aad waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena anigoo hodman cid galaya idin socodsiinaya martida barnaamijku waxa uu ahaa Xasan Gantaal oo aan dhalinyaro afka Soomaaliga iyo waliba kala badan ku heesa kaamirada waxaa duubay oo aanan halkan kusoo koobayn rag aad u fara badan baa isugu tagay ayaguna aad ay u mahadsan yihiin Xasanow intaan barnaamijka soo xirnay heesta ugu dambaysa aan soo qabanin bal heesta aan soo qabanay qaali luula aan dadka ugu tagi doono yaa sameeyay
heesta waxaa sameeyey guuleed cabdi xukun waan aan isku tuulo ku soo kornay oo aan saaxiibanahay waxa la xameeyay fanaan aad iyo aad fanka Soomaaliyeed ugu weyn bulshada Soomaaliyeed magac dheer ku leh Ahmed Rasta musganan Axmaar Tumay qisada heesta sabab ku timid wax ma ka xusi kartaa heesta qisadeedu gabar qurux badan baa laga sameeyay codsigeedana anigu niyo dumarka wax jecel baa igu jiro ana u dhiibtay abwaanka marka waxaan laga yaabaa inuu abwaanku wax ka badan sheegi lahaay laakiin anigu intaas aan ka ha ana dumarka ka wakiilana aad baan ku jecelnahay sababtahay aad ma santiin waa tahay daawadayaal inta kulna barnaamijka mid waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan kaga tagaaba waa heestii qaali loola daawasho wacan qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan noolaa qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan liibankii qayb iyo qoysu helaa oo eedii qalaafiyo faraxay la daga beri dhoobaa laheediyo qabridaar la daga beri liibankii qayb iyo qoysu helaa oo quruxdii hargeysiyo qardhawaayo kulalada qabridaar dhexdeediyo faraxay la daga beri waa qaali luule qalbigeeda yaadhaya way qiimo badantee kun yaryaa u daawada kun yaryaa u daawada waa qaali luule qalbigeeda yaadhaya way qiimo badantee kun yaryaa u daawada qadariyo ku yidhaahda qalanjiyo qowl dabacsan waligeed yaa abid quweeyo ishmeeyo qadariyo ku yidhaahda qalanjiyo qowl dabacsan waligeed qaamusku meeshuu buugta uu ka qoray iyo qararkii kismayaan aroskuugu qabanlaa imihii nugaalbaan aroskuugu qabanlaa qaamusku meeshuu buugta uu ku qoray iyo qardho iyo taleexbaan aroskuugu qabanlaa burcad qaybaheedaan aroskuugu qabanlaa
badantee kunyar yaa u daawada kunyar yaa u daawada kunyar yaa u daawada kunyar yaa u daawada waa qaali luule qalbigeeda yaadhaya way qiimo badantee kunyar yaa u daawada kunyar yaa u daawada kunyar yaa u daawada kunyar yaa u daawada